بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد وحين ما تكهضينا قيبة كمذا dhibaatooyinka ay shirkadda Sunpower ku hayso shacabka magaalada Hargeysa iyo shaqaalaheeda halkan sida aad arkaysaan waraaqaha aan hayo waa xukun maxkamadeed oo ka soo baxay maxkamadda sare ee Jamhuuriyadda Soomaaliland taariikhdu markay ahayd 23 Oktoobar 2019 dabayaaqadii sanadkii 2016 ayaa shirkadda Sunpower waxay boqol shaqaalaheeda ah ku tiri naga saamaxa kala badh حقي أن نقول هيدين طبعا تنين كمية هاديدي ويلي تبال هاي ما تكيجا باهن أنا جابك سامعيه كيجا باهن كنا صداش ساملي ده هاي ما تو نينكي وحلاق على علادين كار يسقى تكنيشن فرسمي قانا أضافك كحيلر أيها اللي الضرب والبارك هذي وحول ملهي ليس أنا قاعد كوك حيل هل معلم بالليسن كيلو بس صار ليه ميلاد ayaa laga bedelay 2 bilood gudahood kadibna waxa lagu heeyay in uu waayir ay shirkadu leedahay qaatay isaguna dukaankii uu ka soo iibiyay iyo dukaankii kale uu geeyay ayuu voucher soo bandhigay 2 bilood ayaa la meermeeriyo mushaarkiisii aan la siinin sida xaqan ku cad kadibna waxa uu dacwad ka furtay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada qoyska ee Soomaaliland wasaaraddu waxay ku xukuntay in Sunpower ay bixiso xaqii u lahaa way diiday maxkamadda gobolka ay rafcaan u qaadatay maxkamaddii gobolka shaqadka dokumentiin baa lagu raacay saxiixa waxa qaar ka mid ah dokumentiyadii ninkii loogu hoos qariyo laga saxiixay in xaqiisa uu qaatay waxaanu ka shaqeynayay muddo 10 sano ah wuxuu xaq halkeed igu shubteen ma ii dahabaad igu shubteen masaad baad igu shubteen makaash baad igu siisan bal cadeeyo waxba lama cadeeynin wuxuu inankii rafcaan u qaatay maxkamadda sare ee Soomaaliland sida ku cad warqadda ugu dambaysa ee xaqana sida ku cad warqadda ugu dambaysa ee xaqa waxa loo xukumay xaq ah 3 sano xuquuqdii shaqaale ee uu lahaa iyo 2 bilood oo aanay mushaharkeeda siinin Sunpower waa shirkadda noocaas ee kootada doonaysa in loogu xidho korontada Hargeysa wasiirka wasaaradda tamarta iyo macdanta Soomaaliland جامع محمود علي وحوها قدوميه Sunpower aragtiyuu gudbin jiray ee fiidiyoda ay ku hayno markii uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka Sunpower waxa ka mid ahaa in aan magaalada laba leyd oo laba dhinac u kala socdo la wadin means waa hal dhinac u socdo Sunpower oo kaliya shaqeey isla tiibu aaminsan yahay oo ku shaqeeya maanta isaga oo ka hadlayay khilaaf soo kala dhex galay Sunpower iyo in la birtana wuxuu ku leeyahay laba leyd oo laba dhinac u kala socdo ولانو magaalada markii aan ogaa shirkadaha isgaarsiinta saarahan laba shirkadood baa jiray oo labaduba ay qaybaha magaalada gaarsiiyaan isgaarsiin waxa ay STC iyo Telesom la labada had ee la midun bay raaci jirtay haysan jirtay waa telefoonada ka hadlaya STC dana midun bay raaci jirtay wax iska hor imanayay ama iska daba imanayay ama sabab la yiraahdo cid gaar ah loogu xidhan halkaas haba yaraatee may jirin Sunpower waa shirkadda koonaysa saacadda noocaas soo xidho waa shirkadda koonaysa saacadda noocaas soo qaaday waa shirkadda koonaysa qiimaha ugu yaraan qaadi karna ilaa waan soo shaqo tagnay waa $10 wixii $10 ka yar leedka iska jiraan way micneedu oo faynuus tahay isticmaalaan walaal haddii aan u baahnayn aan $10 isticmaalo miyaan shan bixin karin miyaan saacaddaas waxay soo qortoon aan xaq igu lahayn waa maxay minimum cost kan aad u gaadijisay waxaan anigu indhahayga ku arkay shaqaale ka mid ah shirkadaha kale ee korontada oo la xirxidayay loona diiday inay nalka ama korontada gaarsiiyaan qaybaha kale ee magaalada marka waxa gaadhiga ku waday mas'uul Sunpower ah oo isgarayno askarigii la soo qaaday baan ku yidhi ninkan iskata leydkiisa wuu xiranayaa adigu waxa la wax ku sameyn kartaa ma jirto dabeetana wuxuu ku yidhi waan ku xidhi buu yidhi waxaan ku yidhi anigu mid adigu xidhi kartid iyo mid taliyaha saldhigga haysta oo xidhi karo midna ma yihi baan ku yidhi wallaahi haddii aad ninkaa taabatidna dagaal baanu ku xigeen anigu markaa shirkadda kale dee saamina kuma lihi ganacsadana ma yihi faa'iido doonna ma yihi waxa laga yaabaa inaan professionally macallin ahay oo ganacsada iyo saamili midna aanan ahayn laakiin waxa weeye xaqqa dadka inaan laga aamusin ama dulmiga aan la ogolaan ayuun baan sidaas ugu lahaa
waxaanu diraynaa qayladhaan ku aadan some power inay dar yeesho dadka leedkoodu ay dhibaatada gaadhsiiyeen kow waxaanu diraynaa qayladhaan ah in xukunkaas maxkamaduhu ay soo saareen ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshadu ay soo saartay ee daryeelka shaqaalaheeda ah in some power ay allahumma salli calaa maxamed u hoggaansanto waxaanu diraynaa qayladhaan ah in ay jabiso qiimaha korontada oo ay naga dayso 63 unit ee caalamka meel laga isticmaala jirin adduunka Uganda kale ayaa World Bank wuxuu maalgeliyay qandaraas lagu dhisayo solar kadibna shirkadii baa qiimihii qaar ka dhigtay dadkii dhammaan shirkadii qandaraaska la siiyey xafiisyadii agabkeedii dhulka ay soo dhigeen inaguna weli waynu daawanaa dulqaad iyo miyir ayaynu ku wadnaa waxaanu doonaynaa in waxaa la leeyahay minimum cost waa $10 laga dhimo oo laga dhigo $5 $3 $2 inta uu qofku isticmaali karo waxaanu doonaynaa in maalintaan power isku dhacna leedka iga jarto shirkad kale aan soo gashan karo xog aan noqon karo waxaan leenahay halkii George Floyd uu taagnaa ninkii Mareykanka ay madoobay la dilay ee uu lahaa I can't breathe anigu waxaan leenahay we can't breathe waxaan leenahay dadku ka xoroobaan shirkadda cunaqabadka ah ee cadceedda shida ee wixii adduunka dadka ugu deeqay ku shaqaysanaysa ee power. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.